رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير أي البابدا كسو xirtay mid kamid ah xubnaha golihiisa wasiirada oo doonaya inuu u tartamo xilka madaxweynaha Galmudug waa Cabdullaahi Faarax Weheliye oo ah wasiiru dawlaha arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay muujinayay inuu xiiseynayo xilka madaxtinimada ee Galmudug wasiiru dawlaha oo markii hore iibinaya qadiyad ah inuu yahay musharax fila Soomaaliya ee doorashada Galmudug ayaa isbuucan xanaaq uga soo tagay magaalada Dhuusamareeb kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu ku yiri isma sharixi kartid sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Faarax Weheliye ayaa la sheegay inuu ku adkaystay mowqifkiisa musharaxnimada taasoo keentay inay isaga iyo Khayre buuq soo kala dhaxgalo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa isaguna qaba fikirka la mid ah midka ra'iisul wasaaraha waxaana uu Cabdullaahi Faarax Weheliye kula taliyay inuusan iska luminin fursadiisa xubinimada ee xukuumadda federaalka ah kooxda Ahlu Sunna ayaa la sheegayaa in ay Cabdullaahi Faarax Weheliye u arkaan musharaxooda labaad haddii laga diido inuu tartamo Maxamed Shaakir waxaa jira heshiis la isku fahmi laayahay oo ah inay Ahlu Sunna 35 xildhibaan ku yeelato baarlamaanka cusub ee Galmudug balse qabaa'ilka ayaa si weyn u diidan arrintan haddii taas la meel mariyo oo ay beeluhu aqbalaan heshiiska 35 xildhibaan musharaxa Ahlu Sunna wadato rajo ayuu leeyahay waana mid dhiiri gelinaysa wasiiru dawlaha arrimaha gudaha sababta uu Khayre u diiday musharaxnimada Cabdullaahi Faarax Weheliye ayaa lagu micneeyay laba arrimood oo kala ah inuu ra'iisul wasaaruhu doonayo in madaxweynaha cusub ee Galmudug ka yimaado beesha reer Xaaji Saleebaan iyo mid labaad oo ah Cabdullaahi Faarax Weheliye oo ah nin dhalinyaro ah oo siyaasadda ku cusub ayna adag tahay inuu maareeyo maamul miisaankaas leh Cabdullaahi Faarax Weheliye oo ka soo jeeda beesha Duduble ayaa siyaasadda ka bilaabay wasiiru dawlaha arrimaha gudaha 2 sano ka hor waxaana dad badan ay u arkaan in siyaasadda uu ku cusub yahay ayna adag tahay in uu maareeyo mushkiladaha isdiidan ee Galmudug sidoo kale gadoodka beelaha Sacad iyo Saleebaan ayaa ka dhigaya musharax aan marnaba maangal ahayn siyaasadda ka hor Cabdullaahi Faarax Weheliye wuxuu ka mid ahaa maamulka xawaaladii musallaftay ee qaran taasoo dad badan oo Soomaaliyeed ay xoolo uga maqan yihiin